Cumar bin Cabdilcasiis bin Abi Caas al-Qurayshiyi waxa uu ahaa hogaamiye ka mid ahaa hogaamiyaashii dowladdii Umayyiyiinta. Waxaa lagu naanaysaa Abu Xafsa. Aabihii waxa uu ka mid ahaa madaxdii reer Bani Umayya. Hooyadiina waxay ahayd Ummu Caasim bintu Caasim bin Cumar bin Khadaab. Awowgii xagga hooyo waxa uu ahaa saxaabiga weyn ee Cumar bin Khadaab, Allaha ka raali noqdee. Cumar bin Cabdilcasiis waxa uu ku dhashay magaalada Madiina sanadkii 6aad ee taariikhda Hijriyada. Waxaa kale oo la sheegaa inuu ku dhashay magaalada Madiina sanadkii 61aad ee taariikhda Hijriyada. Waxa uu ahaa hogaamiyihii 8aad ee dowladdii Umayyiyiinta. Cumar wuxuu ku dhex barbaaray reer abtigii iyo saxaabada. Halkaas ayuuna Qur'aanka ku xifdiyey oo uu cilmiga ka raacan jiray. Cumar waxaa kale oo loogu yeedhi jiray khaliifkii shanaad oo loola jeedo inuu shaneeyo khulafaa raashidiin. Cumar bin Cabdilcasiis waxa uu ahaa qof leh akhlaaqda teeda sare ee wanaagsan, nin alle ka cabsi badan, kana fog fitnada adduunka, xasuusta aakhirana ay ku weyn tahay. Waxa uu ahaa qof karaameeya culummada. Waxa uu caan ku ahaa cadaaladda, ammaanada iyo adduunyo ka saahidka. Waxa ay taariikhyahanadu sheegaan in 4tii khulafo ninka ku soo xiga uu ahaa Cumar bin Cabdilcasiis, oo waxaa la odhan jiray khaamisul khulafaa raashidiin. Sanadkii 87aad Waliid bin Cabdulmaalik ayaa u magacaabay imaarada Madiina, waxaana xilka laga qaaday sanadkii 93aad ee taariikhda Hijriyada. Dhammaadkii khilaafada Waliid bin Maalik waxa uu isku dayay inuu maamulka walaalkii ka qaado oo uu u dhiibo wiilkiisa, laakiin arrintaa waxaa ka diiday Cumar bin Cabdilcasiis. Markii uu khilaafada qabtay Sulaym bin Maalikna waxa uu Cumar ka dhigtay la taliye. Cumar bin Cabdilcasiis waxay muslimiintu la baayactameen sanadkii 99aad ee Hijriyada. Xilka ma uusan rabin, raallina kama ahayn isagu, laakiin waa uu aqbalay. Markuu xilka qabtayna waxa uu ku caan baxay cadaalad. Waxaa la sheegaa xilligiisii qof muslim ah oo saka u baahan in laga waayo dhulkii uu islaamku ka talinayay, heerka cadaaladiisu ay gaadhsiisneed awgeed. Waxaa sidoo kale ay taariikhyahanadu sheegaan in xilligii uu talada islaamka hayay in dhurwaayada iyo xoolaha la dhaqdo ay isku meel ka daaqi jireen, oo dhurwaayadu aysan xoolaha la dhaqdo cuni jirin. Wakhtigii Cumar waxaa la hagaajiyey habmaamulkii dowladda islaamka. Waxaa horumar lagu sameeyey saqaafada islaamka, oo waa wakhtigii la qoray axaadiista nebiga sallallahu calayhi wasallam. Waxaa dadaal badan la geliyey dacwadii islaamka iyo waxyaabo badan oo kale oo lagu guulaystay wakhtiga. Cumar bin Cabdilcasiis markuu khilaafada qabtay waxa uu amray in reer Bani Umayya maalka ay haystaan ay ku soo celiyaan baytulmaalka muslimiinta. Xitaa xaaskiisii Faaduma waxa uu ku yidhi kala dooro inaad aniga ila noolaatid iyo in dahabka iyo maalka aad haysato aad baytulmaalka muslimiinta ku riddo. Faadumana waxa ay dooratay Cumar. wixii ay adduun lahaydna waxay ku celisay baytulmaalkii muslimiinta. Markii uu dhintay Cumar oo uu xilka qabtay walaalkii Yaasiin, ayaa Yaasiin waxa uu ku yidhi xaaskii walaalkii Faadumo, waxaan kuu soo celinayaa hantidaadii. Waxayse ugu jawaabtay, maalkaas waxaan diiday Cumar oo nool, mana qaadanayo isaga oo dhintay. Ugu dambayntii Cumar bin Cabdilcasiis waxa uu dhintay sanadkii 101aad ee taariikhda Hijriyada, isagoo jiray 40 sano. Waxa ay sheegaan taariikhyahanadu in la sumeeyey, waxaana la sheegaa inay sumeeyeen reer Bani Umayya, maadaama reer Bani Umayya wax alaalaya wixii maal ah ee ay haysteen ee xaaraanta ahaa inta uu ka arooriyey uu ku riday baytulmaalkii muslimiinta. Alle ha u naxariisto hogaamiyihii weynaa ee Cumar bin Cabdilcasiis. qaybtii 10aad ee barnaamijkii gaarka ahaa ee aanu ugu talagalin Ramadaanka, isla markaana aanu si kooban uga hadlaynay taariikhda qaar ka mid ah halyeeyadii islaamka. Maanta intaas ayuu inooga egyahay. qaybtan 10aadna waa qaybtii ugu dambeysay ee aanu u gaar yeelnay in aanu uga hadalno qaar ka mid ah halyeeyadii islaamka. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.